إله جنة نكويدي سن إله نارتي جهنم كامل قال لي إله والدين تنا أنحرسته إله والدين تنا أنحرسه إله والدين تنا أنت لمتى آخرتك الله أنحرسته قبورته الله نوريه إله سبحانه وتعالى قبورته روض من رياض الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب خالق أحسود وهذا ميل والبقى جوكتين أصحابي channel كوا قرح دمر official تو kusoo dhawow haddaad igu cusub tahay oo ay tahay markii kugu horeysay fadlan waxaan kaa codsanayaa channelka inaad subscribe saarto, like saarto, sii share garayso. haddaadan igu cusbeen ood hore ila joogteen aad iyo u mahadsan tahay. like-ta ii saar asxaabta cusub oo igu soo beertay sidoo kaleeto soo dhawaada ayaa idin leeyahay. kusoo dhawaada gacmo furan iyo niyad saafiya oo idin jecel. asxaabteyda qaaliga aan jecelahay aad iyo mahadsantiin. fiidiyowga noo share gareeya. intaas kadib waxaan rabaa maanta inaan idinla wadaago cabitaan aad u fiican oo healthy ah oo caafimaadka u roon oo macnaha caafimaadku ah oo maasha Allah aad ka heli doonto haddii dhig la'aan ku hayso iyo haddii kalaba. marka waana wax iska easy ah oo adi aad subsan karto mar walba. waxaa fiican qudaarta dalkeena inaan ka faa'iideysano asxaabteeda qaaliga ah. easy waa aad easy u tahay. marka insha Allah ka faa'iideyso qudaarta oo dalkeena marka insha Allah asxaabay aad u mahadsantihiin. maka daali doon inaan idin dhaho waa mahadsantihiin. marka koowaad ilaah ayaa mahad iska leh. marka labaadne idinka ayaa idin mahad celinayaa. aad iyo mahadsantihiin. kama daali doono inaan idin dhaho waa mahadsantihiin. asxaabay sida halkaan ku aragtaanbo waxaan ku haystaa beetroot iyo cambo ayaan ku haystaa. marka labadaas shay ayaan rabaa horta inaan cabitaanka soo soobiyo haddii ilaahay idmo. labadaas shay beetrootka waxaa ka buuxa faa'iidooyin aad u fara badan oo aan la qiyaasi karin. sidoo kaleetana cambahana sidoo kaleeto faa'iidooyin aad u fara badan ayaa ku jiro. marka insha Allah marka sidaa daraadeed faa'iidooyinka ka buuxo hal iyo labo ayaan idinkaga sheegi doonaa. waa idin soo koobi doonaa haddii ilaahay idmo. asxaabta qaaliga ah waxaan ku hormarayaa beetrootka faa'iidada uu leeyahay 1 iyo 2 intii markaas inta muhiimka ayaan idin sheegayaa. beetrootka wuxuu ka hortagaa dhiig yarida, wuxuu qurxiyaa maqaarka, wuxuu ka hortagaa daadashada timaha iyo cidiyaha, wuxuu koriyaa lafaha iyo ilkaha, wuxuu caawiyaa sifeynta beerka iyo kaliyaha, wuxuu badiyaa difaaca jirka, wuxuu aad ugu fiican yahay hooyada uurka leh iyo naasnuujinta, wuxuu ka hortagaa jacdadka ama gabowga maqaarka, wuxuu u fiican yahay dadka qaba macaanka, wuxuu u fiican yahay dadka qaba kolestaroolka, wuxuu u fiican yahay miisaan xakameynta. marka intaas ayuu u fiican yahay beetrootka. marka intaan soo sheeganay wax sahlan ma ahan. markii aad shiidato oo aad cabitaan ka dhigato. marka insha Allah hadda asxaabteyda waan jarjarayaa sida aragtaanbo. beetrootkii ayaan jarjarayaa. marka intaa meesha soo wada dhigan dhanne ma aanan jarjaraynin oo macnaha ma aanan soo jarjarin. waxa aan kaliya soo jarjarayaa waa 3 xabo oo beetroot ah. marka waxaan ku darayaa haddii ilaahay idmo 2 xabo oo cambe ah. marka cambahane insha Allah waxaan rabaa 1 iyo 2 inaan idin sheego fitamiinada ka buuxo ama uu caanka ku yahay. marka cambiya hadda jarjaranayaa sida aragtiinbo. asxaabteyda qaaliga aan jecelahay ee halkaan ku jiro fiidiyowga like noo saar, like fara badan noo saar fiidiyowga asxaabay. waxba kaama dhibeyso inaad ii saartid, waxba ay kaa dhibeyso malahan. marka cambaha fitamiinada oo caanka uu ka yahay waxaa kamid ah vitamin C, vitamin A,
fitamiin B6 iyo fitamiin K ayuu ka mid iyo maadooyinka folic acid iyo potassium. Cambaha wuxuu caawiyaa hoos u dhigista sokorowga, wadna xanuunka iyo cayilka xad dhaafka ah, wuxuuna ilaaliyaa midabka dabiiciga ah ee maqaarka, wuxuuna ka qayb qaataa koriinka timaha. Marka waxaa rajeynayaa inaa intaas ka faa'iideysan doontiin haddii Ilaahay idmo. Mar haddii cambihii kaliya uu ku jiro fitamiin A iyo fitamiin C iyo B6 iyo fitamiin K iyo maadooyinka aan soo sheegay ay ka buuxaan, marka wax la soo koobi kara ma ahan. waa fitamiino, labadaba waa laba fitamiin. marka saas daraadeed aan ka faa'iideysano. cambaha hore wuxuu ahaa cambo aad u bisil asxaabay, sida arkayseenbo markii aan soo jarayay. kanne waa cambo adi maskoote oo dhanaan ah waay. marka cambaha biseelka ah waa macaan maho. kan marka wuxuu siinayaa cambahan dhanaanka ah ama maskootada ah wuxuu siinayaa dhadhan ayuu u yeelayaa. marka ani laakiin saa idin sheegay hadda ka hor cabitaan oo cambaha waa in kala qayb qaatay Soomaali. ani dhanaanka ma jeceli asxaabay, ani macaan leh waa sheekadeyda. marka saas daraadeed dhanaanka ma isjeclin asxaabta qaaliga. ani cabitaanka maanta ma ku jiray. marka insha Allah marka hadda cabitaankii cambihii ayaan jarjarayaa si aragtiinbo. meesha waxaan ku haysanaa cambihii mid biseel ah iyo mid maskoota ah ayaan isku haysanaa. kadib waa ujeediin waan soo jarjaranay, halkaana noogu jiraa. kadib beetroodkii ayaan kusoo darayaa oo 3 xabo ahaa. waa 2 xabo cambo ah iyo 3 xabo beetrood ah ayaan isku soo darsaday. marka kadibna waa kasaas ku soo baxay asxaabta qaaliga ah. kadibna waan soo shiidayaa, waxaan soo qaadanayaa makiinadii aan ku soo shiidi lahaa. marka saas daraadeed makiinadii aan ku soo shubanayaa si aragtiinbo. insha Allah asxaabteyda qaaliga aan jeclahay makiinadaan ku soo gurtay. kadibna waxaan ku soo darayaa biyo. ayaan ku soo dari doonaa 2 galaas oo biyo ah ayaan ku soo daraa. hadda waxaan ku soo daray sokor. sokorta waxoogaa waa ku fiicnayso uma jeedin. aan laakiin sokorta saas muu isticmaalo asxaabay. horta ana sokorna ma isticmaalo, barafna ma isticmaalo. alashaan biyo qabowga mararka qaarkiis markaan arko leh ma ogi waa iska ilaaliyaa. inta badanba waan iska ilaaliyaa sababtoo sokorna waa iska ilaaliyaa. marka had saas daraadeed cabitaankaas idin sheegay aniga kuma jiro. marka adiga hadda u baahan tahay in aad isticmaasho sokorta bedelkeeda malab ku darso. haddii aadan ku darsanaynin malabkana waa ka maarmi kartaayo oo cambaha macaan waaye. marka laakiin hadda cabitaankan dad sokor rabaa loo soo binooyaa. sokorta dadna way rabaan dadna ma rabaan Soomahan. marka sida aragtiin hadda waan shiidoyaa. marka kadibna insha Allah saas ayuu ku soo baxay cabitaankeenii quruxda badan leh maasha Allah, fitamiinada ka buuxaan. kadibna garaafi ayaan soo qaatay. waxaan rabaa inaan ku soo miiro ayaan rabaa. caano miirkan soo qaatay iyo garaafaha afkiisa way isla egyihiinbo. garaafaha afkiisa caano miirka ama caano miirka weyn yahaybo. marka xoogaa yar waxaan isku dadayayaa inaan kuma miiri karo. geed macnaha biyahan wuxuu wataa qashin fara badan ayuu wataa. marka saas daraadeed mi anfici doono. marka xoogaa yar kusoo miiro adi baaquli ayaan soo qaada doonaa haddii Ilaahay idmo insha Allah soo igu fudaado miiritaankiisa. marka asxaabta qaaliga halkaan daa soo gaartid waxaan ka codsanayaa like ina ii saarto inaga iloobin. subscribe-kan sidoo kale dad hore igu ahayn waa arkayseen qashinkii koowaadaan ka soo bixiyay. marka dadaan iska miiran way jiraan marka isku shiitaan cabitaanka iyo beetroodka. laakiin ani markaan maxana ma jecli. waxaan jeclahay marka cabitaanka oo beetroodka iyo cambaha inaan iska miiro ayaa jeclahay. saasuuna ku fiican yahay.
laakiin dadka qaarna nin walba jooskiisu waa soo maha. marka asxaabteyda qaaliga aan jeclahay welito caanimirkii aan kula dagaalamaya ama shaandhadiisa u taqaaniin. marka sidaas daraadeed waa iska dhaafi doonaa, baaquliyan soo qaada doonaa haddii ilaahay idmo, baaquliyan kusoo miiri doonaa, waaba ii fududaan doonaa insha allah. laakiin sidaan hadda aan ku wado ma ii fududaanayo oo ma suurta galayso, sababtoo ah caanimirkiyaaba weynbo. marka asxaabta qaaliga aan jeclahay laga faa'iideysta cabitaankan waa iska easy, aad u easy u yahay. waa laba shay isku soo daraysid. waa kaasaa baaquligii ayaan kusoo miiray, fuudeed ayuu ii noqday baaquligii markaa kusoo miiray. asxaabteyda qashinkaas ayaa kasoo baxay aragtiin. marka dheecaanka si fiican uga dhameynayaa, si fiicana uga miira ujeediin soomaan. marka asxaabteyda qaaliga aan jeclahay videogan like fara badan hala saaro, macnaha waa dhiirigelin soomaan. idinkan wax ma idinka dhibayso, anigana waxay ii taraysaa. marka aada umahadsantiina idin leeyahay asxaabteyda qaaliga ee aan jeclaa. waa kaasaa qashinkaasa kasoo baxay. kadibna asxaabteyda waxaan kusoo shubi doonaa garaafo ayaan kusoo shubi doonaa. marka adi haddaa rabtid baraf ku darso, haddii aadan rabinne sidiisaa ku cabi kartaa. marka insha allah barafaa lagu dari doonaa, laakiin ma idinla wadaagin, gadaalaan baraf uga dari doonaa. marka insha allah asxaabteyda qaaliga aan jeclaa waa kaasaa hadda cabitaankeenii sidaas quruxda badan leh ayuu kusoo baxay, lagama sheekeyn karo. marka waxaan u jiijiidayaa garaafaha waxay tahay gacanteyda la arkayaa, saas daraadeed ayaan xoogaa garaafaha luuqa ula gelaya, raalli ahaado asxaabay. marka aada umahadsantihiin. waan kusoo shubayaa bakeeriyadii ayaan kusoo shubayaa cabitaankeenii. hadda waa inoo diyaar. inta faa'iido ku jirtayna da kolley waad maqlayseen. marka insha allah laga faa'iideysto. waa idinka sii tagayaa, waa anigoo qurux dumar official tour. waxaa idinkaga sii tagayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. isku soo noqoto.